bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal kusoo dhowaada youtube-ka wararka soomaalida qodobada ugu waaweyn aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wadamada reer galbeedka ayaa soo farageliyey muranka badda sii xoogeysanaya ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya. Waqti dheer waxaa kor u sii kacaya rabitaanka Kenya kaga jira inay si dhab ah ay u hanato qayb ka mid ah goobaha ugu kheyraadka badan ee Soomaaliya leedahay sida badda, iyadoo la ogyahay Kenya inay xoog ku haysato oo gumeysihii Ingiriiska u gacan geliyay qayb ka mid ah dhulka Soomaaliya ee loo yaqaan NFD. meelaha sida aadka ay isugu hayaan Kenya iyo Soomaaliya ayaa ah goob istiraatiijiyad oo qani ku ah saliidda iyo gaaska ee wadamada awoodda badaha isku dayaan inay u diidaan kuwa kale. muuqaal kooban oo lagu qoray Standard Media ayaa lagu sheegay in Kenya ay dhibano beenaad ay u tahay dadaalka dheeriga ee lagu maareynayo istiraatiijiyadeeda kheyraadka marka loo eego sahayda qiimaha iyo helitaanka, waxayna Kenya ilaa iyo hadda diidan tahay inay cadeyso in halka la isku haysta ay tahay dhul Soomaaliyeed, balse Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa baadi kugu raagtay lihibaad mooda. qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka ayaa dab ku sii shidaya muranka badda Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo awoodda caalamkana ay tahay mid go'aaminaysa cidda sida saxda u leh badda la isku haysto. Kenya waa la qalqalgeliyay, sidaasi daraadeed waxay diyaarinaysaa hanaana ay kaga badbaadi karto go'aan aanay ku qancin oo kasoo baxa maxkamadda dambiyada adduunka oo hadda gacanta ay ku hayso kiiska muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya. shir ka dhacay 7 bishan February kaas oo magaalada London kaasi oo looga hadlay soo bandhigida xogta shidaalka Soomaaliya ayaa ka careysiyay Kenya, waxayna ku qeylisay in qayb ka mid ah halka muranka uu ka taagan yahay ay Soomaaliya ku soo dartay xogta soo bandhigida shidaalka Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa go'aan ku gaartay inaysan cidna uga tanaasulin taaka ka mid ah dhulka Soomaaliya dan kasta oo Soomaaliya ka leedahay. shacabka Soomaaliyeed ayaa ku baaqay in Kenya xiriirka loo jaro laguna amro in ciidankeeda ay kala baxdo Soomaaliya maadaama badeeni soo hunguriyeysay. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen wararka youtube-ka Soomaalida waa naga intaa.